السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسنا أصحابي ميل كستو أدنا داوريسان دولة اليمن تاgeerada ka hesha Sacuudiga ayaa digniin soo saartay ay leedahay Xuutigu waxay wataan qorshe weyn oo cusub kaasoo ah dhul xeebeedka Yemen ay leedahay ee ku teedsan Bab al-Mandab inay la wareegaan hadday halka la wareegaanna Sacuudi iyo dalalka kale ee mari lahaa halka waa khalaas haddaba faahfaahintii ugu dambeysay arrinka digniinta waan idin hayaa waxaa soo kale aan idin soo gudbin doonaa wasaaradda gaashaandhigga ama wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ayaa iyaduna qiimeyn ku haysa inay dhinto ciidanka ka jooga bariga dhexe gaar ahaan khaliijka sidoo kale waxay ka fakaraysaa inaanay dib dambe u dayactirin saldhigyadii laga qararamsaday ee ay Iiraan ku garaacday gantaalaha iyo droniska sababtu maxay tahay waan idin hayaa sidoo kale Mareykanku waxa uu kordhinayaa wax soo saarka iyo badinta raadaarka hadba meel la dhigo haddana meel kale loo qaadi karo si markaa looga hortago gantaalaha iyo droniska Iiraan qodob muhiim ah ayaa noo soo socda oo barnaamijka aynu ku faahfaahin doono balse marka hore waxaynu ku bilaabaynaa xukuumadda Yemen ee taageerada ka hesha Sacuudiga ayaa soo saartay galabta digniin maxay ka digaysaa waxay leedahay Xuuti haddaan laga hortagin wuxuu qaadanayaa dhammaan dhul xeebeedka ku teedsan Bab al-Mandab hadduu mar halkaa la wareegana cid bini aadan oo ka saari karta ma jirto halkaasuu qabsanayaa waa tan Xuutiga ay lahayn Bab al-Mandab waxaan ka rabnaa lacag halkaasna Iiraan maxay leedahay Hormuz waxaan ka rabnaa lacag marka xukuumaddii Yemen ee shidaalka Sacuudiga ee hubka lala daba jooga ee nimanka inay iska celisan la rabay waxay joogtaagtay waranagu tabarteena ma dhiban ay xawayaacaya waa ku aadnaa dhehen haddaba waa idin dignay dhulka ayaysan qabsanin nimanka marka maxaa laga qaadaa sheekada yaab kale nimanka Yemeniyiinti kale oo la soo hubaya waxba ka qaadi waay ma Sacuudiga inta yimaada oo dhulka Yemen yimaada ayuu Xuuti hor istaagi karaa ma Mareykan hor istaagi kara sidee la yeelaa marka sheeko waalana beesha ka socota haddaba markaan idin soo warbixin goordhow la soo saaray wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm wuxuu leeyahay qorshaha ay qorsheynayso Ansaarullah ma waxay qorsheynaysaa inay qabsato ay la wareegto dhul xeebeedka ku teedsan Bab al-Mandab xukuumadda Yemen ayaa soo saartay digniino ay ku faahfaahinayso in jamaacadu ay qorsheynayso inay markaa la timaado qorshahaas cusub haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay wasiir ka tirsan xukuumadda Yemen ee taageerada ka hesha Sacuudiga ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in kooxda Xuutiyiintu ay hadda qorsheynayaan inay qabsadaan dhammaan dhulka ku teedsan marinbiyoodka Bab al-Mandab kaasoo halis gelin doona yiraahdeen marinkaasi isku tallaabida marinkaas ee maraakiibta sida haddaba loo xiray marinbiyoodka Hormuz oo kale haddaba ila wareedyo kala duwan ayaa waxay sheegayaan in xukuumadda ciidamadeeda ee ku sugan aagagaas ay soo food saartay xaalad aad u adag oo ay kaga hortagi karaan kooxda Xuutiyiinta Xuutigu marka muxuu haystaa Xuutigan Yementu ay celin laadahay muxuu haystaa Xuutigan wuxuu haystaa gantaalo iyo drones waali ah haystaa ciidanna wuxuu haystaa kuwa aan naxayn oo marqaansan oo socdo oo taqsiintu halkaas joogto socdo dudaaya marka nimanka Yemeniyiinti kale way yaabayihiin marka hadda digniinaal soo saara Sacuudi isbahaysi raadina kana leeda meeshan ka soo gaaray leeyahay dhul xeebeedkan hadduu gacanta ku dhigo Xuuti khalaas Bab al-Mandab وحرب مسائلي waxaa digniinta soo saaray waa xukuumadda Yemen oo Sacuudigu maalmahan u isticmaalay ciidankeeda inay hor istaagaan oo ay la dagaalamaan nimanka Xuutiga marka warkaas halkaas ayuu marka jooga uu maraya sheeko kale yaab laha marka soo baxday nimankii Mareykanka ahaa wasaaradda gaashaandhigga ama wasaaradda dagaalka waxay leedahay waxaynu qiimeyn ku sameeynaynaa inaynu dhinno askarta naga joogta khaliijka ee dhulkan maba difaaca karna askarteed hadduu dagaal hadda qarxo
إيران أنت هرتي أسكر ويقرم صري مركا أسكر تاس وأسكر لما سيدنا هاي حاكله صلدق يدينا لكبر برينا مردسينه محاجرة هذا بريه بربرين ساي waxaan iskaga celin ma hayno abaadka inta la kawar waa wasaaradii gaashaan dhiga Mareykanka ogaal meesha wala iska daba tagay ninka raganimadiisu waa loo qaraa nimankan aniga farisiyiita oo baaratay shiicada niman gacana u taagan Iiraaniyiinta caadi ma Mareykanka wuxuu leeyahay askartaydii aan dhima hatta saldhigyadeedii dayactirkoodii waa iska dhaafaa saldhigyadii balaastigana looga garaacay gantaalaha iyo droniska lagu hurgufay oo kulligood saas u wada jajabay ma dayactirayno maxaa dhacay ma ka celin karne maxaa sameynayna hadda hadii la isku bilaabo waa imaanayaan jugteena gillaan Ameerikaanka asaas u qeylay marka waxa ogaanaysaan adduunkan boolo xoofto iyo booto ilaa intee soo kartaa lagu hogaamin karaa waa la iska daba tagaa dhowr sano u soo martay odaga macalinka weyn iyo xirtiisa inay adduunyadan booto ku hogaamiyaan hadda wixii waa dhamaadeen reality la jooga dhabtii qof walba itus iyo taabsiye marisa haddaba markaan itusoo sheeko la yaab leh oo arrinka laga qoray goor dhaweyd wargeyska Al-Qudus wuxuu soo xiganayaa jariirada la yiraahdo Washington Post ee Mareykanka ka soo baxda waxay leedahay Pentagonka qiimeyn ku hayaa mustaqbalka joogitaanka ciidamada Mareykanka ee khaliijka wuxuu sidoo kale dhimayaa tirada askartaas oo fiirsada waxa sidoo kale la sheegay inaanu dib u dayactiri doonin saldhigyada dhibaatadu ay soo gaartay ee Mareykanka mawjada saldhigyada Ameerikaanka ee jugta laga geliyay hatta ma dayactireen intaas oo dhan marka maxaa loo sameeyaa Washington Post ay qoraysaa waxa leedahay khasaaraha dagaal hadda haduu qarxo waxba laga qaban karo askartana lama difaaci karo saldhigyada kalena lama difaaci karo marka waxa yaab leh ninaan dhageysanay oo khabiira oo la wareysanay wuxuu leeyahay imisa sano ayaa khaliijka lacag looga guranay anaga idin ilaalinayna waliba cid kale ma ahana Iiraan ay ka ilaalinayna lacag looga qaadan jiray American Kuwait u dagay Imaaraad u dagay Saudi u dagay Qatar u dagay Bahrain u dagay meel kasta u dagay halkaan u dagay intaas oo dhan muxuu u dagayaa ana idin ilaalinay niman sunniyiinatiin oo xogaa dhaqaalaha haysta Iiraan way idin ku soo yaacaysa Iiraan ay ka celinaya cid kale meesha saldhigyada loogama sameeyna lagu leeyahay waa yaabaysa moogtahay waxa lagu leeyahay American qaliijka saldhigyada uu ka sameystay iyo ciidanka uu geeyay cid kale loomaba geynba waana khabiir oo reer Kuwait oo jaamacadda wax ka dhiga ninka la wareysana wuxuu leeyahay wax kale looguma keenin ba askartan waxana loogu keenay qaliij hadaan nahay Iiraan adii ka difaaca idinka celina ilaahay amarkiis wuxuu leeyahay maanta maxay maraysaa marka maanta waxay maray inuu annagana difaaca iska daay saldhigyadiisii inuu dayactirinin askartiisii inuu la cararayo sabab ma iska celin kariyo dha Iiraan maba ku aadani hadda haduu dagaal bilowdo saldhigyadan dayactirin nugtignagta ka saaraysa marka maxaa qarash loo gelaa askartana waa qaadaya waa yareynaya Washington Post qorays ayagii warbaahintoodii ka hadlays Pentagonka miiska arinta saarata lagu leeyahay maanta laga doodaya maxaa sameynaa marka wuxuu dhahay annagii lacagtana looga guranayay meel baabana la iloobu dhahay ayagii marka sheekadan maaratay hadda see u baxsanaay ku jiraan marka wuxuu leeyahay aan isku tashano reer khaliijow arabay aan isku tashano ninkaas caadi ma ahayn wallahi wuxuu leeyahay aan isku tashano annaga war annaga mar daba Mareykanka waxa kan aan iska deeyo hatta hadda tabar kala weyno dhahay ninkaas u fiirsadaya war Iiraan tan alle heshiino dhahay Iiraan maxay dhiban ugu haysaa hatta hadday baadna weydiisato Murbiyood Hormuz aan siino Mareykan ba wasiinayne marka sheekadu waa soo dhanaanaatay meeshaas xaal ku maraya waxa la yiri hal la kordhiyo raadaarka hadba meel loo qaado oo meel kale la geyn karo raadaarada Mareykanka qaar waxa jira meel lagu rakibo
oo waxay sheegaan marka gantaal iyo diyaaradii wixii hawada soo gala kuwiya marka ku rakibnaa inta badan wadamadan khaliijka iyo waxaas midkan mutanaqilka marba meel loo qaaday uu ku yaraa kuwii rakibnaa Iiraan gadaale ka soo wareeganay jugtay ka saareen daroniskiya dalaqnaa hadda marka maxay yiraahdeen warshadii hubka soo saarayay waxa la faray inay soo badiyaan raadaarka hadba meel u guuraya gaariga lagu jiidaa meel kale la geena raadaaradaas la badiyaa intaasoo dhan yaa ka daba tagay oo ceebtaas banaanka keenay waa Iiraan marka waa xaalku halkaas waa tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay warbixin uu ka diyaariyay arinta raadaaradan Washington waxay raadinaysaa inay horumariso raadaarka guurguura ee mobilka loo yaqaano haddaba majalada la yiraahdo Axios ee wararka dhanka Mareykanka ayaa waxay ku waramaysaa in hay'adda difaaca gantaalaha Mareykanka ay raadinayso hadda inay horumariso raadaarka nooca guurguura ee mobilka ee awoodda u leh inay ogaadaan gantaalada balastiga iyo kuwa kale ee noocyada kala duwan ee weerarka iyo diyaaradaha droniska si markaasi Iiraan aysan u bartilmaameedsan goobaha ay ciidamada Mareykanka ay joogaan iyo saldhigyada halkaas mare waxaan raadinaynaa in la horumariyo gantaalaha guurguura macnaha raadaarka guurguura raadaarku waa mid hawada in la soo galayo in kala sheegayo waa bahal yaro saxan weyn iyo alaab iyo wata marka mid baabuur jiidi kara jira waa jiidaysa halkaas geeyne hadana waa soo jiiday halkaana keene marka diyaaradii gantaalihii raadaarka raadsanayaan raadaarka waa indhaha gantaalaha difaaca indhaha hadii lagu tiro wax ma arki kartid marka gantaalihii wax difaacaya marka hore waa in raadaarku u soo qabto uu yiraahdo diyaaradda waa tan halkaas ay joogtaa markaas uu gantaalku weerari kara marka raadaarkii hadii laga dilo hadda waa sida Iiraan ay ku sameeyso kale raadaaradii tukum daakum ka dhigtay raadaarku marka hadii la dilo see ku difaacaysa mar gantaalkiisu u soo socdo oo ku soo salaamaya iga qaba waay habi droniska tara hoberiska waay nab saasala marka dagaal la isaga garaacaya hadaba marka barnaamijkaygi waa naga istaa qodobadaas ay soo kordhay hadii Allah idmo wixii kale soo kordha barnaamijka caawa ayaa noo ballanaa like garay oo share garay barnaamijyada inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kasto aad joogtaan nabadgelyo